كل معلك يقول كحراقي المدقان يسدوكو يا إلي من المدقان واحد قفكي وكلا وكلا الدين وكلا الدول وكلا المدب waxay bulshada reer Soomaaliland noqon dhaqmaan kaasoo ah haybsooc kaasoo ah waa dadka laga tirada baday kaasoo ah waa midgaan waxa jiray oo haddana jira inay qabiilada qaar ay ka haystaan dhibaatooyin buuxinta adeegyadii aasaasiga u ahaa nolosha kuwaasoo bulshada ay la nool yihiin u wada siman yihiin ku abtirsashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland filimkani waxa uu soo bandhigayaa dhibaatooyinka ka haysta dhanka waxbarashada guurka iyo shaqada qabiiladani waxay kala yihiin Madhibaan Musadariyo Anaas ama Yibro iyo Tumaal ayaa dhibaato ku noqotay inay oodoodaag la noqdaan bulshada dhigooda ah ee ay wada nool yihiin الكين عادي هو هذا عيدي عادي إنه يكتال عيب بدون دون استيد عبر ضيضة يجي ذو يقطع شعير تعالى على الكي عبشري ذو ها يجي عالم كي عليه إنه هقطع عن تبكيس أركستاتين عدك قريش كوا فقدان هذا عدادسكي وحن الله وسلامتين ولا لهيبتين ملكستو أجوكتوبا وأن أجح إن هذا ضد الشيء إلا هي هيدن كرسي إذنه inaan ahay walaalkiin oo garabkiina taagan waxaan iskiin baro waxaan ahay walaalkiin weligiin badiido waalid bayna wada dhalay wehelkaygu waa ani waxba adigu hay tudhin wadankaygu kuma karo walaal waa ninkii weyn waxaan ahay walaalkiin aan iskiin baro colaadii ma jirto cabashana ma taalo waxaan idinka doonayaa oo keliya inaa ogaataan inaynu wada dhalanay oo walaal horta sideedaba ummadan afka Soomaaliga ku hadashay madaqadan geeska Afrika ku nool waxay taariikh badan baa lagu khashaa waliyahan xoolo dhaqatada waxa la yiraahdaa waxay ka yimaadeen Arab oo ma aragtaa wadad abad sida Isaaqay iyo Daaroodka iyo ma garatay qoliyahan waxa la yiraahdaa wuxuu ahaa xirfadlayaasha waxay ahayd dadkii dhulka loogu yimid dadkani waxay ahayd taariikh leh dad waxay ahayd dawladda كبسن محاكو لغدايا هالكن إني سوق قرسيان دولدا سومن كافافين ترتي دينتا إسلام الشيخ محمد وحكمدها علماء واوين النص هالكن إني فافيان دينتا إسلام وحال الشيخ يا إلى تدخل بقرطوية حنترين لكن بقرطوية داس بقرطوية ظلم في هذاك الشيء أنا نقطة متعددة تدخل مقناص عوانك أحياء ولا طبعا أيضا معمولين إلى كل حد جذبين وعدالة الدفاع ودينا والبله ودينا الدين ودينا دقنه ودينا دقاله ودينا نورود إنه كسبين هذا شوي تبيتنا عقابر الباني هي بلاش من يأخذ عين إلى هاي نبدأ هون كيس ما دول يحقق لا يكل إحرام مع بيرتي سيء ولا كيس. حدثنا تاريخ ده وتاريخ هنا حيابها مثلا هركيسة دقناها إن كستي قبائل كلا بحيهين ورهي وبقيم كيسة وحيس أوجار ولها إن كل أفر وباقو عن سنين تبدن ولذا ثم لذا هي الناستا يبرها الله يقارن هي مدبانك هي مسؤولية طبعا يقول فكر قولة دتك أي كايستان أيها هدانا دي أي كلا دوين سيدا الصوماليد بدقانها قبائل كدو كلا دوين طبعا dadkan marka marxal bal soo mariyay marxalada aad u qaraar bay jiilashooda qaar soo mareen dadkan marxaladaha tikoorka iyo cunsuriyada lagu hayaa cunsuriyadimo wanaagsana iyo qabyaaladii markan isbarbar dhigno tan ay mujtamacan ko marka dunida kale la eego tii Mareykanka taagan tii South Africa ka taagan taa kan marka la eego waxbay ku dhisnay wax la taaban karo laakiin tani maxay ku dhisan tahay haddaan nacas ahayn qofkii waa kula af waa kula diin
waa kula dhul waa kula midab waa kula luqad waa kula abuur af soomaalina waa ku wada hadashaan magac midgaan cay maaha midgaan cay maaha anaana caddaynaya waxaana ku caddaynaya ereyga midgaan midigtaada markaad midigteeda imika u geyso waxa ay noqonayaan midgo soomaalidii horena wax kasta oo wax jara ama wax sara waxay u taqaanay mindi dadkayguna inta badan waxay ahaan jireen dad ugaarsataa oo qaabis iyo leeb wata maadaama ay ahaayeen wax kasta oo wax jara midi u yaqaaneen waxay samayn jireen ganna waa taqaanaa oo marka wax la tuurayaa gan la dhaha hebel dhagax buu soo galay hebel qori buu soo galay hebel wax kaluu soo galay marka midigan taas halkaasay ka timi mindigane kii mindida tuurayay magaca halkaasuu ka yimi markaa cidda cay u haysata ama fikir khaldan weeye aada uga aaminsantahay waxaanan leenahay magacaasi cay maaha haddaba ra-islahan loogu magac daray midgaan yare ayaa soo jiidasho ku sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan si gaar u ii soo jiito waddada aanu maraya mar kolley waxaa sababeeyana inaan si gaar aan u sawirto waa qariib ugu noqday wax mufaajaha ugu noqday ugu cusub sidaa daraaddeed magac ayaan yaro maqli jiray ka aqoonsaday meesha inuu ku qoran yahay dabcan dee waanu ku faraxsana maadaama ay bulshada magacaan isticmaasha ay hore u ahayd bulsho yaro la eebsooco sabab dhanka bulshada kale uga timid aawadood iyo dee sababo jira aawadood marka ninka ku dhiirada halkan inuu furto haddana magaca ku asqeeyo kolley si gaara aniga ii soo jiitay sawirkana arrinkaas ay ugu kalifay inaan sawiraa magacaa marka la eego waxa weeye dee horta magacaasi waxa uu ka soo jeedaa dee meel fog uu ka soo jeedaa waxaa magacda ay keentay buu ka mid yahay gumaysiga la isgumaysan jiray uu keenay maadaama ay dadkani dowladda hore soo ahaayeen marka ay jabeen dee waa la midgaansaday oo midgaanyimana addoonsi baa dib loogu celiyey markaa waxaa dhacday in dee ay laba magacba oo ajiiyo maxaa loo kala bixiyey iyo midgo labadaasaa labada ay kala qaatay kolkaa midgahaadana yidhaahdeen qoladan kalena cayd ka xun bay u sii jeegeen waxay leedahay ajaa la yidhi bade ajadana waa la yaqaanaa waxa ay tahay laakiin markaa cay bay ahayd sidaan u soo waxaysan midgihiisa imika dee wax ka xanaaqaayba ma jiro midgii magac lagu faanay noqdeen ba imika waxna dee layskama saaro maadaama wuxuu u wada yaqaanin dadkan dee ajiga la yidhahdeen gebi midgaade horta laisku wada yidhaahda ama gabooyin u yaqaanin laakiin iskagama dhowo dadkani ereyo badan baa magacan markii aan baahnay midgin oo kale dadkan maadaama ay xirfadlayaal ahaayeen midgiyayaal midgo yani waxa maadaama waqtigii cawaanka lahaa ay dadkan xirfadla ay ahaayeen oo dee wixii la xidhanayay iyo bugii iyo magaraysa wixii lagu soconayay iyo wax walba iyagu ay soo saari jireen oo dee aan la gaadhin civilizationkan iyo waqtigan maaragta warshadaha casriga warshadaha aan la gaadhin iyagaaba productive ahaayo dadkan wax soo saari jiray markaas waxaa la yidhaha magacan midgan wuxuu ka yimid midgin wax allah waa professional man wax allah ay yahay ma jirto waa midgiyayaashii iyagoo batay yaa midgiyayaashii midgo u badanaashii iyo wadartii iyo waxay intaas u kala sheegaya marka wax ayuu yahay habi aragta ma jirto wax ayuu jirta ma jirto qof walibana waa siduu iska dhigo maaha sida loo yaqaano sida uu ilaahiisa ugu xidhay inuu sharfay inta uu isagu naftiisa sharfo ayuu baana la sharfaya waxay bulshada reer Soomaaliland nagula dhaqmaan kaasoo ah haybsooc kaasoo ah waa dadka laga tirada baday kaasoo ah waa midgaan kaasoo ah waa dadka la faqooqo kaasoo ah waa dadka looma ooyaanka la yiraahdo all that ayaanu doonaynaa inaanu ka xiro madaalo oo kama hado laygama furo isna igama furmo habeen kasta sagaalka marka ay tahay anoo wali faraxsan oo miftaah sita ayaan waxaan soo weeraraa oo soo kafuula albaabka aan habeen walba garaaco kaabadihiisa shanta ah marka albaabka aniga in cabis soo hortaago anigu kalgacalka aanu qabo dartii masarkaan la soo baxaa oo tirtira miftaahiyaan sitaan geliya mar baan rogaa iska daa rogis murugme ma dhaqaaqo mar kuma qanco laba kuma daalo boqolaal markaan maray faruux xanuunaan ayaan cuskadaa tabti aan horeba uga daalo iyo garaacista albaabka faruhu markay iyana idaalaan ayaan fadhiistaa kaabada shanaad calool xumo waxa igu haya waan laabin weligay albaabkaasi ragga aan farteeda gaarnay markay soo hortaagaan iyagoo garaacinba labada fardood u furmayaan tiiraanyo iyo calool xumo waxa igu waa dadka isu kaaya arkaya aniga albaabka een mar raba lahayn maxaa idinka dhaxeeya ma garateen albaabka waa qalbigiina
وقلبك ولا لهي أشي وايدنك يقفل البابك وأنا قراع يهد يتشر ولكن يدلون دشانه هل قاعد الذين قبوا إذن شعل إلهي هيدين كرسيو سدان يشعل وكلين يشعلاتان ninka farsamo yaqaanka dunida waa laga qiimeeyaa ee xirfadda leh ee ikhtiraacka leh ee wax soo saara mushkiladda eegi jirtaa kow bal kabahebaan u tolaynayo oo aan cadceed qoraxdii iyo qodaxdii iyo dhagaxii iyo darxumadii dhanba waxaan uga tollay kaba ay ku xaragoodaan oo ay ku badbaadaan ku socdaan umuurada ku qabsadaan keebay kugu yasayaan hadda isagii bal adigiibuu kuu baahan yahayo baahi kuu haysaayo oo uu kuu ibanaya kule waa bal waxa ku socda iyo waxee haddana dib buu kugu yasaya markaan ku leenahay waa cunsuriyad nacasnima kulley niyow shaqo kastaaba dee faa'iidana way leedahay khasaarana way leedahay dad islaamana waa noorta waa noor saaqadu way qoraal laakiinse dhibaatooyin baa jira niyow si ahaan raislayaasha haysta oo aanay la qabin mujtamaca kale dhibaatooyinka waxaa ka mid a kow horta lambar one waxaa ka ah gebigeeduba sixir fadhiya ma laha waana sababaha keenay in iskaashatada xitaa aanu samaysano qof baad u xiraysaa jeefku gacanta kuu gelinayaa wuxuu ku leeyahay intaa qaado waxaan iyo waxaan kuu qabtay iyo isuma qalmaan baad leedahay shaqadaydu waxaan aan kuu qabtay iyo shaqadaydu isuma qalmaan baad leedahay deedna wuxuu ku leeyahay may annaga inta saala nagaga xiraa intaa saala naga xiraa inaad isku dishaa inaad uga tagto markay noqoto inaad uga tagtaa imanaysa wuxuu kaloo kugu yasayaa rayiis bal isagoo fool xunoo diifadaysan oo tarxumaysan buu kuu soo gelayaayo intaad heeryadii ka ragto aad qurxisay oad hagaajiso bini aadam u ekeysiisay xakuutaanka yuu ka odhan la waad mahadsan tahay niyo ilaahay khayr ha ku siiyo marka hore dadka mabaan dhex geli karayna iminka laakiin xataa waan hasaawo tegi karay u odhan lahaa buu ku leeyahay wuu yasayaaba shaqadii waa maxaad iyasi cidda lagu ile ay uma xirna anagu xoolana uma xiro adaan kuu xirna adiga ma garat adiga haddii laguu xiray wayba shaqadan u yasisaa adaa yasan markaa de adaa liitaa ilaa anu cid kale uma shaqayna shaqada cidda u qabana waa adiga ciddan madaxa ka xirna waa adig ku hagaajinna de hadday shaqadana liidato kan loo xirayana u liitaa waxaan kaloo xusuustaa had iyo jeer marka aynu inagu wada hadlayno ninkii beeralayda ahaa ee heestiisu ay caan noqoto meel kastoo dadka wax tirsadaa ay taagan yihiin bal lagu qaado liyaho I want to know how it feels to be free waxa quran doonaya waxay tahay bal inaan ogaado dareemo waxay tahay xorriyaddu sinaanshuhu iyo walaalkiinu idinla mid aynaan ahay dadaalada loogu jiro sidii bulshada kor loogu qaadi lahaa dhinacyada aqoonta waxbarasho ayaa loo aasaasay akaademiga waxbarashada ee magaciisa la yidhaahdo aadan xafiisku saanu wada ogsoonahay waxa awoodda saaraa sidii bulshadan jahliga looga saari lahaa isagoo khaasatan u guntixidhay sidii bulshadani maadaama ay waxbarashada aada uga hooseeyaan waxbarashada aada iyo aada looga soo dhisi lahaa bulshadan wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan 6 gobol ee Somaliland walow hadda ay noo dhiman tahay inaanu ceerigaabo aanu gaadhno laakiin awdal iyo gabiley iyo maroodijeex berbera iyo saaxil berbera iyo aymin togdheer iyo laascaanood intaba isku xidh ayaanu ka sameynay sidii bulshadan waxbarashada heerka koowaad ardayga istabaro oo watan elementary-ga iyo intermediate-ka oo 1 ilaa 8aad wixii inta ka dambeeya ayaa bulshadan inta badan caqabado ay ku soo baxdaa halkaasaan ka bilownaa secondary-ga ilaa heer jaamacadeed anigu shakhsiyan waan ogahay mushkilaadka duruufta adag ee ku xeeran bulshada aan ka soo jeedo marka la eego xagga waxbarashada duruuf adag baa ku xeeran duruuftu mid gudahoodana way tahay mid dibadoodana way tahay waa waalid dareensanuun si kastoo qofku wuxuu bartaba inuu iska midyaan u noqonayo yeesan yahay marka dhaqaalaba uma hurayo dibaddana way ka qabsataayo ardaygii markuu walaal galaas fadhiisto ay 50 arday yihiin ee uu harraasa oo 50 kubadda u arkay inay dhinac ka wada yihiin maanta inuu reerka yahay ogaadaan dhagtiisu saaran galaaska ka baxay akademiga waxa uu soo qabsoomay in 2011kii iskuul xaafadda daami ka yegleelo kaas oo moral hazard u
u samayn doona bulshada aan kasoo jeedno ciyaalkooga yarar xamuuman inta la faquuqay ee isku haysta in la faquuqayo iskuulka waxaa xadhiga ka jartay 2011kii wasiiradii waxbarashada samsam cabdi aadan oo hadda wasiirka maaliyadda sidoo kale waxaa xaafadda daami aanu ka samaynay barnaamijyo wacigelineed oo taabanayay bulshadan inay yihiin bulsho jirta oo reer Somaliland la mid ah waxaan markaa ka fakarnay maadaama ilmihii madaariskii kale markuu tago qaliinimo dareer ونحن مسكوسير أوروريسان يجا فدور أنت وحوالستا يجا سكوسا أورورية هي الشعبية دي هين هدرين متكين يهين ومرر كان جلسة ده حفر السنة يعني كنت كلك جيب دي الحير إلا كذب حقا أساسنا في يو تبي سجاشة في مقالة روتو يورويت ولا يرى قلبات لتحت بري تحت قرن برعه برشاد الخاصة وحبان برنامج قريبا قوتنا ما شاء الله ركبة كصوب حي دنا برعه ركبة كصوب حي كذب هرجسن هدنا كبلون مدام عاصمة قوبة وحبرشان كليس وحكا أساس مثلا مدارس كقوبة وحكوا أنكو قرن مركا إمبلاش لقط المي مركا مجورة تيجي دفع ودحفر يودد ويقان من قوة عياران دتكن مقعيدة ويقانا والد كذا ولا يقانا ويس ولا محل لها اسود وهالشدين فرينا ورخرب ودام أنا ولي أبسلان والد في إنتظار وكمل ظروف تكو حيرنا أنا سامحي المهنة مركا حدين في الله جرى عن سودان نقولينه تسوى واحد رئيس جلافنسو وحب قوان كجارنا فرح لك لو مركا جيب سوصل لدقنا قرآن كيف سنة درين كي سنوات بسنا أردقو مركا قرآن كيفو أمد الدويو معنويا نول اسمه مسيح السنة أتتهم بحكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيق وحويان مختار عبد الله ريقل معمولها مراكز الفتح لنكأة قدوميها أمر بالمعروف لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحافظا دام رن أهانتي أسبابا كل إنه كلفي إننا أساسنا مراكزتان sababta koobaad markii aan aragnay aad baahi weyn oo xaafaddu u qabto xalka xifdiga quraanka taas oo bulshadan xaafadan degan aad iyo aad ay uga liitaan yar tahayna tayada xaafadan madaarista ku yaala wax soo saarkooda saa daraadeed markii ay taariikhdu adigu ahayd 2004 go'aan waxaan ku gaadhay inaan quraanka barto taas oo aan muddo badan ka fikirayay in aan maalin maalmaha kamid ah maanta ama si ka badan aan rajaynay haduu Ilaahay raado anoo maamul ah ummad badan wax taray ummadii xaafadan isbedel badan ku sameeyay asbaabahaas ayaa igu kalifay inaan maraakistan aan aasaas tabashadan u gaarka ah dadkan ma tahay mid saameyn taban kaga yeelata dugsiyadii dawladda ee bulshada qaybaheeda kala duwan u siman tahay waqtiyadan minority-ga ama laga tirada badan yahay ardaydooda way noo joogaan iskuulka way dhigtaan waalidkooda way nala soo xiriiraan way ka mid yihiin guddiga maxaan ku iskuulka ardaydu kama tilmaan maxaan ku kama takoorna ama tilmaan gaara ma laha oo maxaan ku ardaydu bila same leeyihiin waa isku mid ardayda ayaa iyagu si fiican runtii wala soo dhaweynaa markay waalidintooda noo keenaan xagga xitaa daraska hadday noqoto ka dhasheen maxaan ku qoys danyara waan tixgelinaa daraska ma xidhno buugaagta cidda u baahan maxaan ku waan siinaa oo hay'adaha nala shaqeeya NRCO kale oo maxaan ku imkana rabta inay nala shaqeyso oo u keenaan maxaan ku buugaag waxa danyartoo dhan ayaguna ay ka mid yihiin marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa iskuulkana way dhigtaan maxaan ku in ka badan maxaan ku horta hadda in ka badan maxaan ku 100 arday yihiin goobta waxbarashada waxaa isugu imanaya dhalinyaro fara badan oo kala duwan oo background kala duwan leh oo meelo kala duwan ku soo koray oo family kala duwan ka yimid family faqri family taajira kursiga ku wada fadhiisanaya way saaxiibayaan way israacayaan team bay wada noqonayaan waxbay u soo wada shaqeynayaan library ku wada akhrisanayaan waa artaan jaamacadda Hargeysa library weyn bay leedahay oo arday badan ku akhrisan karto ilaa 200 arday
marka maalin walba marka ardayga laba kursi isku xiga wax ku akhrisan library-gii way isbaranayaan marka dambe dadkii kalaaskii wada fadhiisanayaan maxaa markaa abuurmaya saaxiibtinimo bulshadii baa isdhex galaysa saaxiibtinimada bulshada isdhex gasho markay sii badato waxaa sii yaraanaya cunsuriyadda iyo dadkan minority in badan baa la yeesay iyaga laftoodu sidii way qaateen maskaxiyan bay u qaateen marka wayaan si waxaan looga dhex saaro inay dadka la mid yihiin la tuso waxa qurux badan in dadka ay ku dhex darsamaan haddii aan leedahay waxbarasho shaqo social kubadoo kale guurka laftiisa marka wayaan haddii sidan hadda ay yihiin ay u socdaan for the next 20 years soo socda haddii sidan ahaato xataa guurka caadi buu iska noqonaya sababta ciyaalkan maanta 20 years ka bacda aabayaal bay noqonayaan iyo hooyooyin saaxiibkoodna waa nin qof minority iyo qof caadi u arkeen horta beeshu waxay la mid tahay beelaha Soomaaliland laakiin waa u kala badan yahay xagga qabyaaladda waxaan soo aragnaa inuu si weyn waayo waxaan maanta kaliya si xun oo qaybsooco haddana maxay beesha ka buuxiyaa ama tamaam ka buuxiyaa midkaha waayo ka dhalinyarada haatan ka hadlo مثلا jaamacadaha oo kale iskuulada oo kale aad badan kala takoora sababtoo ah waxaad arkaysaa iyagoo leh kuwaas oo gurweeye ama dabeetana midkiyaan ku tilmaamaya dabeetana ardayga wuxuu qaadaya smart ayuu ka qaadaya ka wuxuu kala soo noqon kaligii saas ay tahay haddana waxbarashadii lama tijinay waa la wadaa caqabadaha kale jira waddanka jira waxaa ka mid ah iyadoo dhaqaale musaaniix ka heerka jaamacadeed oo ardayga wuxuu sekondariga dhameeyo heer jaamacad ma tegi karayo sababtoo waxaa laga rabaa fiidiina ma awoodayaan inay bixiyaan xukuumadda Soomaaliya iyadoo badan isku dayday inay bixiso fiida ama ay balan qaaday laakiin wax miradha oo la odhan karo ay bixisay ma muuqdo malaha dhowr toban meelahaas ayay lacag ka bixisaa laakiin capacity-ga loo baahnaa maysan gaadhsiin waxaa kaloo jira oo waddanka qabyaaladda horta aad loo hadhay waxaad ku garanaysa in qabyaaladda loo hadhay iska daa heer kaloo heerka soo gaadhay in kubaddi la ciyaarayay iska caadigayd qof walba dee aqoontiisa iyo lugtiisa uu ku tartamayay ay ka dhigaan qabiil oo waad arkaysaa maanta wasaaradda qofka haysta in kastoo yimaadaya wuxuu ku leeyahay waxaan qabanaa koobkii gobolada koobkan gobolada xitaa kuma tartantay qabyaalada ugu tartamaa oo qabiil kasta reerku ka soo jeedo ayuu ku tartamayaan dabeetana waxaan arkaysaa koox gabooyaa jirta oo ciyaarto kubadda iyaga laftooda markay ciyaarayaan waxaad arkaysaa fogaada ay kala kulmayaan la leeyahay waa caynkan waa sidan waa caynkan waa reerkii caynkanaa haddana saasoo tahay inuu iska dhex jiraan wadada kaas ka ciyaaraya wayaan markii hore berigii hore waxaa odhan jirta qabyaaladda waxay yaqaaneen odayaasha iyo dadka ay saadinta lagu waxay jireen laakiin maanta waxay maraysaa heer dhalinyarta ay soo gasho baashu qabyaaladda waxaan ahay arday ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Hargeysa waxaan dhigtaa Faculty of Civil Engineering waxaan ahay semester 2 waxaan doonayaa inaan idinka siiyo macluumaad qaabka ardayda iyo wada shaqayntoodu waxa ardayda isku keenay iyo waxa uu ku dhisan yahay ardayda iyo wada shaqayntoodu iyo walaaltimadooda iyo qaabka ay wada shaqaynayaan waa mid ay isku keentay kolba xiriirka ay leeyihiin iyo xiriirka academic ahaan ee aqoon ahaaneed ee ardaydaasi ka dhaxeeya haddii ay tahay arday isku group ah waxaa dhici karta in ardaydu aanay isku xaafadaba gelin ama filixka magaalooyinka aanay isku magaalooyinba ka iman laakiin si midda midaysa ay tahay arinta aqoonta iyo waxa ay goobta u yimaadeen oo ay u fikirayaan sidii dad academic level ah taas waa ta ardayda midaysay iyo qaabka ardaydu collaboration-kooda u yeeshaan talabaadna waxa weeyaan aan doonayay ka waramo sidee bay u bedeshay society-gii bulshadeennii sidee bay u bedeshay aqoontu alxamdulilah si fiican bay u bedeshay waxay ka kaxaysay meel marka hore dhulka aada u taalay waxaanay geysay meel heer saraa waxay ka kaxaysay wax la kala leeyahay ama qaab maxay hayday qaldan loo qaybsado waxaanay u keentay wax la wada leeyahay oo la wada ilaashado oo markaasi waxay ku fikirsiisay dadkii inay ku fikiraan inay dad noqdaan tangible progress horumar la taaban kara dad sameeya dadkani gebigeedu horta waxay aaminsanaan shaqadan inay cayb tahay ama ceeb tahay sida birtumista timaxyeelista qashin xaarista iyo shaqooyin kala badan ay bulshada u hayn jireen waxay aaminsanaayeen maadaama ay dadkan shaqada u hayaan bulshadana ay shaqooyinka ka faantay ka mid ahaayeen dabadeedna waxay isiraahdeen haddii aad dadkan wax bartaan yaa timaheeda ka xiraya aniga nin odaya ii sheekeeyey waqtiyada ka mid ah wuxuu ii sheegay in inankiisa iskuul geeyey xilligii iskuulaadkan iminka la dhigta ay bilaabmayeen waagii ingiriiskii
wuxuu yidhi nin baan u tegey maamulaha meel fadhiya waxaan ku yidhi buu yidhi war inanka waxbarashada ii geeya wuxuu ku yidhi markaad imika aad inanka wax barto annaga yaa timaha naga xeeraya yaa noo samaynaya yaa qashinka naga xaadhaya yaa ilaa waynu kala leenahay hawlehe waa fikir khaldanoo markaa muddaa hore ay aaminsanayd ama aad u taqaanay sababaha markaa kalifay waaga inay wax baran waayaan waxyaabahaasaa ka mid a waayo mujtamaca la noolaayeen baa u arkayey shaqooyinkan hayayeen shaqooyin liito dadkayga inta badan dhalinyarada qaarkood waalidku waxay kula taliyaan inuu waxbarashada iska daayo balse uu maxaa yeelay iska shaqo tago uu ka doorbido waxbarashada la'aana ayna hadda ahayn ee waqti hore ahayd taasi weliba oo dadku waalidku ayna garanaynin qiimaha ay leedahay waxbarashadu may garanaynin waqtiga laakiin hadda waalidku waxay kula taliyaan ilmihiisa inuu wax barto oo waxbarashadu tahay lafdhabarta nolosha ay tahay bay ogaadeen taasi waqtigan jaamacadda aan ku jireen waxaan ku rajo weynahay inaan noqdo qof bulshadiisa ka dhex muuqda inaan noqdo bulshada Somaliland inaan noqdo qof ka dhex muuqda dadkiisa iyo dalkiisaba kor u qaadaya inaan noqdana Carafa waa arday qalin jebinaya jaamacadda Hargeysa wuxuuna ku jiraa ardayda ugu cadcad dufcadiisa yihiin horta dalku u baahan yahay iyaga inay horta marka hore ogaadaan inuu dalku iyagu u baahan yahay laakiin iyagu u baahnayn dalka intii taa ogaadaan baa loo baahan yahay dhalinyarada Somaliland midda kale iyagu waxaan leeyahay waa inaad ku midowdaan qadiyad iminka marka la yidhaahdo dadka caalamka markaad u fiirsato waxaa la odhanayaa waa niyow marka la yidhahdo what's nationality wuxuu ka odhanayaa American innaga halkii ka odhanayaa reehebel in reehebelkaa marka ay ka baxaan iyo ay yidhahdaan in anugu Somaliland qadiyada saa ay u qaadaa ayaa aniga qurux badan oo qabyaalada sheegtay oo iyagu sidii u gudbaan kabacdina ay ogaadaan in ay lafdhabarka Somaliland iyagu ay yihiin oo dalku weliba iyagu u baahan yahay isbedel dadkan bedeli doona mustaqbalka weliba maxaa yeelay madaxda hadda jooga ee beedkoodu dhacay waa weynaaday inay iyagu yihiin hays dareemaan oo dalka ha fikiraan brainstorming iyagoo sameynaya maskaxdooda sameynaya creativity iyagoo sameynaya wax cusub si ay u soo kordhiyaan fikirkayga taasay tahay oo wax cusub innovation wax cusub la yimaadaan dalka halkii ka taariibayaan inta qulquli lahaayeen waxay barteen ay resource-kii meel kale kuma dhiman lahaayeen ama dal kale keeni lahaayeen maskaxdooda uga faa'iideeyaan dalkoodana garyaqaan Cumar waa garyaqaan ka tirsan garyaqaanada ka howlgala gobolka Maroodi Jeex waxa uu soo maray dadaal nololeed oo soo gaarsiiyay halka uu imika joogo ciidan kala soo baxay hadana waxa uu timid xirfadda loo yarno waxaan u adeegaa dadka jilicsan dadka ay ka mid yihiin dadka kale ka sii jilicsan kuma xidho lacag adduun kuma xidho nolosha dhibteeda iyo adeegeeda waa soo maray si aanan ninka nolosha adeegeeda soo maray ummadana u tuura una naxay maanta looyarada Hargeysa ka mid ahay aad bay shaqadii looyarnimadeedu aad bay ugu badan tahay garsoorka dalka aad baa layga soo dhaweeyey aad baa laygu tixgeliyaa maxay day cid ummadda kalaaba layga jeceliya dabeecaddaada ciday kugu tartaa tahay inay hebel meesha ma shaqayso haddaad aqoontaada wadatid waxaan qabaa haddii aad wax baratid oo raganimo iyo karti la timaadid takoor baan jirin caburin baan jirin faquuq baan jirin waxaad iska dhigtay Mahdi Cismaan Buuri waa gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa waxa uu hore u soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka sanadkii 2005 waxa uu u tartamay doorashooyinkii ugu horeeyay ee baarlamaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Mahdi waxa uu qayb lixaad ka soo qaatay horumarinta beesha uu ka tirsan yahay kuna abtirsado midba midka kale uu ka sii qurux badan yahay taana waxa keenaya isku kalsoonaanta dhaqaalaha ila dadka dhaqaala yeeshay ruuxa foolxumidiisu waa dhaqaala la'aanta iyo ilaa ka fogaanshaha inamada waa arkaysaa shicaarka islaamka foondooda ka wada muuqda way tukadaan carruurtii kale ayaa imika iskuullada lagula yaacay dee uu adiga arkay channel jaamacadaanay ku jirin iyo iskuul aanay ku jirin ma jiraan yacni taasi waxay ku timi hagar la'aanta xukuumadaheenii isbedelay amba tii daahriyaala ha noqoto amba tan oo gacan weyn uu ka geystay
madaxweynaheena axmed maxamed maxamuud aadan uu ka geystay siraayo oo uu shaqo geeyey si dabalaalana buu yidhi waa in ninka soo baxaa waa hodkeeg waa la sugayaaba intuu jaamacadda ka soo baxayo baladeegada dadkii baa waxay ku tartamayaan amba dahabshir ha ahaado amba talison ha ahaato amba xukuumadda ha ahaato inanka soo baxa yani somalilan oo dhan meesha doonaha ka soo baxee inan qura oo shaqali ma jiro ha soo sheego inanka qura jaamacad ka soo baxee shaqali maba dhicinba maba jirtaba lana xoolo ragfeedha ka xisaabtan baa layidhi mid kastaa meeshu ka soo baxo waan ogahay mid kastaa meeshu joogo waa ogahay wixii aanan ogayna waxa og yar maxay ahayd ururkan ay samaysteen ayagii baana iminka inan qura oo bilaa jaamacadina ma jiro jaamacaddan iminka anigu aan ka ahay guddoomiyaha carruurta dhiida keentay inaan qaadanin baanu ayaga waxaanu siinay affirmative action baanu siinay positive discrimination baa la yidhahda ayaga waxaanu dhii xitaa hadduu keeno waynu qaadanayno si aan u dhiirigelino oo aan mujtamaca intiisa kala soo gaarsiino anigan kule way soo khafiifaysaa qaar baa ka odhanaya warniyo wallaahi bilaahi maye waa run isku mid waa leeyahay laakiin xagga diintay ku liitaan maadaama adaa 100% diintaada fiican tahay imisaa ilaah iyo nebiga suuqa ku cayad gabadhaada u guurisaa si kasta oo ay tahay muddooyinkan dambe waxa isa soo tarayay kala guursashada qabiilooyinkan iyo bulshada inteeda kale hablahan oo codsaday inaan la magac dhabin xaalado jira awgeed waxay ka mid yihiin dumarka u dhaxay beelaha la haybsooco waxaanay ka warramayaan dhibaatooyinka ay kala kulmeen guurkooda markii aan yar koray waan shaqayn jiray waxaan ka shaqayn jiray carruurta xanaanada orfanada dabeetana anigoo halkaa joogunbaa inan baan iska barannay halkaa inankaasaa markaa keenay inankan dabeetana uu iskeen baray markaa imuu odhan waa tumaal mudug markaa wuxuu waa ciidagale waa ree guddoon barasho wanaagsan waan isbarannay aduu alaa kulli xaal sidaa uma soconin baan markii dambena waan ismehersanay markaan ismehersannay ayaa laysoo kiciyey xaafaddan baa lay keenay markaasaan xaafadda dumar ka mid ah oo isaga ay dumaashay yihiin oo berigii hore isnaqaanay ayaan ku arkay markaasaan ku uhi war heedhe ciidagale ma tiide saynab waan aqaanaay walaalkaabaa qabee maad ka sheegatay qoladaada markaasuu yidhi tumaal baana laakiin reer guddoonkaas waan isla dheeg baxnaa waan isnaqaanaa sidii baan isku baranay sidii baan isku guursanay dabeetana inan anigoo dhalay hore ayaabaan reerkayaga tegey waxaan isiri bal haddaba waxaa la yidhi hooyadaabaa waalatay anigu markaa agoon baan ahaa aabbahayna keligay baa ka noolaa hooyadaabaa biyo xidhaydhka timid oo agabarbay timid oo laasdhuuray tagto xeeray tag meel kasta way marto hooyadaa weyn dhabeeli gaadhay baa laygu dabeetana waxaan isiri haddaba imika hooyadaa u tag anigoo markaa inankaygii weynaa xambaarsan isagoo 7 bilood jira ayaan tegey dabeetana hooyaday way igu duloydo waxay tiri hooya adoo keligaaya yaad iga tagtay adoo 2 abaad ii timid bagaad ii timid dabeetana wareysi baa la yeeshay dabeetana waxaan hooya ninka caynkaa iyo caynkaasaan guursaday Somaliland wuxuu soo jeedinayaa hadda kolle anagu waa iska waxaan ku uri dadaysanahayo dee kolley horta annaga waxaan ku galaynaaba jannada oo waayo wana loo xashiya waayo 2 qof oo imika meel wada socda haddaan ag marno waayo intii ilaheeda reer hebel guursatay waayo qabrigeedii waxaa laga yaabay inay laga kala yareeyaanba dembigeedii ma garanaysaa laakiin dadkan waa dad isku mid ah waa dad islaama waa dad nala diina waa dad nala dhaqana yani waxay ku leexsan yihiin oo arkayoo dee waa la soo dhaqmay inta reerka ku dhex jira waa 17 sannadood weeya kama yara ilmahayga barigaa dhalay wuxuu noqon lahaa maanta 17 jir ma garata intaana waa la soo dhaqmay dee naag wala guursatana codadka ma qabto waxaan uga qabin ilaahay horta waxaan waa qadar oo dee calafku ilaahay kaaga dhiga ha ahaato kalsoonida naftaada ka qabtid weeya ma garata waayo dee waxay dheer yihiin baaba jirinba ilaahayna dad wiiga siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin maasha allah rag iyo dumarba markaa dadka wuxuu soo jeedinaya dadkani dad la siman inay yihiin dee qofkan waa nala diin waa nala dhaqan waa nala islaam waa nala deegaan maxaa lagu daadifi kara xaawiya aadan baana dadku kasoo wada jeedaan maxaa ina ka dhigay nasab ina ka dhigay yacni waxaan waxba ahayn hadda ma fahan annagoo haatan iminka ku reeroona dee hablaha soo gelaya
shisheeyaba intay raaci lahaayeen ninkaa la garanayo kula diinta kula dhaqanka kula deegaankaaba loo qaaday marka annagaa naga daayaan dhibaatada hablaha ka daayaan dhibaatada ha noo duceeyaan sida nimanka kale gaalada ugu farxi lahaayeen si ka fiicana noogu farxaan sahra waxa ay ka mid tahay haweenka u dhaxay qabiilooyinka kale ee aan ahayn kuwa la haybsooco waxa ay ka warramaysaa caqabadaha guurkeeda la soo gudboonaaday bacdaha saare maxamuud oo faarax waxaa jirta bini'aadanku dee kole dhaliila way iska leeyihiin oo ilaahun baan dhaliil lahayn waxaa soo maray 2 nin oo reerkayga ahayn baan guursaday dabeedna waxaan wax dhibaato leh dee kolley labada reer iskugu dhowaa dhaliila isku sheega marka waalidku wuu xanaaqaa amba hooyada ha noqoto amba aabbaha ha noqdo labada dhinacba way xanaaqaan dabeedna waxaan ahaa dee qofka kalsooni iyo kaga baxday karti aanu haystayna dee qofku inaan waxba ay dheerayn aanu nahay dad diintii walaalaysay wax dhaliiloo dhibaato aanan qabin de oo marka anu qofku waxa uu iga weyn yahay uu iga dheer yahay baanan u arkin waxaan maamula ka ahay Maraakis Quba oo xaafadda aan ku yaala iyo gaar ahaan xafiiska xaafadda ka furan ee Najid Macruuf Axmed Rabista wanaag fariistaan ka gudoomiye ku xigeen qolo kale STDI leero dhalinyaro jaamacad isku tagtay taana waxaan ka ahay gudoomiyaha fulinta oo waxaan la dagaalanaa qabyaalada iyo qabiilka waxaas waxa u galay awoodii ismaan oran wala ku koraya ismaan oran laana markay arkeen dhalinyarta noo shaqeynayo firfircoon ay soo dhaweystay hada laakiin markii aan xaafadda aan dhaafi lahayn aan isgelin lahayn nacam wala wata xoora maanta xilka baan qabtay fahant dhaweed waxaan research samaynayo nimankii dhalinyarada ee beeraha iyaga ee reeraha kale ka guursaday ayaanu nin waliba waraysan waxaan ku wareedhe sabtoodadan ka qabta gabadha Landheeri iidaha ma xambaartaa inanka yare gaboye ayayda u tahay nin waliba wuxuu yidhi maya islaantu way ka qashisay inanka yare gaboyene xambaartay jaaris oo la wareegto abtigii iidaha ma kaxeeya waa ta la yidhi ab haddii loo waayo abtima loo waayo war abtiyaashad ma kaxeeya maya baa le waxaan taa ka aaminsanahay inta dadka wacyigu korayo ilmihii mar haddaanu abtina lahayn ayayna lahayn oo iyagiiba ka qajilayaan war annagu kuwa iyaguna walaaqana baan leeyahay intay dadku diintoodii wacyigooda korayo ayaan soo jeedinaya guurka anigu dhibaatayguma hayo waan hubaa in la isguursan doono haddana waaba la isxadaa waa la isqabaa waanan ogahay sababahana lagu diidayo faqriga u horeeya cidina ma rabto qofaan waxba haysan ilaahay ha naga saaro faqriga qofka faqiirku iska furuxsan yahay aqaladiisa foolxun ugiisa foolxun aragiisa foolxun iska cawlan yahay cidina markaa lama jeclay ilintiisa insha allah waanu qurux badan doonaa waanu kici doonaa waana nala soo doonan doontaa guurka maha dhinaciinoo keliya kaayagana waxaan idin leeyahay ha ilaabina xusuusnaada qalbigiina ha ku jirto in maalin maalmaha ka mid ah qasriga madaxtooyada uu geli doono inaan daami ku dhashay oo noqon doono madaxweynaha aamiin ah Soomaalida waxay tiraahdaa hebelow talateeda ugu jecleeyo wuxuu yidhi taan ku jabo waayo waan ku tala bartaa anigu waxaan ahaa xubigii ka soo jeeday beelaha laga tirada badiyay reer Soomaaliya muwaadiniinta kuwa ee ka qayb galay labadii doorasho ee ugu horeeyay Soomaaliland waxaan ahaa musharax keligii u taagan golihii wakiilada ee golihii deegaanka ugu horeeyay waxaan ka sharaxnaa xisbigiisa keligii ayaa gobolka Hargeysa ama Soomaaliland ba ka sharaxnaa waxyaabo waaqici jira kuma soo bixin beeshan ka soo jeednaana waa beel dimuqraadiyadda cabtay oo beesha ugu dimuqraadiyadda badan waayo ilaha majority-ga kamay suuro gelin intay ka tagaan ninkii iyaga beeshooda u sharaxnaa in anaga noo codeeyaan oo nin qolo majority-ga noo codeeya wuu yar yahay waa boqolkiiba 0 baan oran karaa laakiin anaga waxa naga suuroobay beelaha wada degi jireen oodi ab ka dhow iyo lacag intay la yimaadeen meelihii waxay nooga xishoon waay musharaxiintii kale afartii sanduuqa daamiye noo yaala aagayaga halkaas ugu jiricsan bay lacag iyo oodi ab ka dhow baa la yimid waxa weeye codadkii bar badan bay naga kaxaysteen marka waxa weeyaan bulshadeeduna waa bulsho aad u danyara oo dadka gidaarada ka baa ku tulaya wuxuu ku iman karaa in golayaasha wakiilada iyo deegaankaba in koota la noo jaro oo caalamka minority right protection wax la yiraahdo jiro ee Djibouti-deenan iyo meel badan bay ka jirtaa caalamka minority-gu mar haddii ay ku soo baxayn doorasho dee si aanay uga madhnaan sawirka dimuqraadiyadda dee waxba loo jaraa kow waa in maxay ahayd koota la noo jaraata deegaanka iyo wakiiladaba talabaadna dee asaasiga naga maqanay madaxweynaha gacantiisa ku jirtana dee madaxweynaha waxba hore ugu soo jeeday iminkan uu soo jeedinaya
inuu qalinkiisu naqabto oo uu noo magacaabo xilalka naga maqan muwaadiniintan ka xaq ku leenahay kuwa u dhaartaanahay taasaan joojinahay waxa weeyaan wasiirka warshadaha haddii xitaa lana siiyo annagu beesha keliya maxay ahayd farsamo yaqaanadan kabihii warshada kabeed baa la samayn lahaa tiibirtaa la samayn lahaa cid kale oo maxay ahayd farsamada takhasuskuy ma jiro marka waxa weeyaan haddii xitaa warshado yaryar oo Portugal lanoo sameeyo ee dadka wacyigooda saruu soo kicila qoladii kabaha toleysana dee hudheer baaba ka saarayo waxa weeyaan hudheerkiina waxba iibiya kaboolayaashii landheeraha bay iibiyo ee kaboolaha iyagana hablaha waa loo diidaa kan kale ee landheeraha ay hudheerka iibinaya aniga way isku filahay madid ka qaadan maayo quursi intii hore ka badan idinka yeeli maayo haddaa waxay siinaysaan atrageed baan idinka rabaa doorasho waynu u simanay dastuurku way naga wada dhexeeya dalku waa dalkeennii calankuna waa kii somalilan qaybtaydaan ku leh doorashaan gelaya ama aan kufo baritaan baan kugu leh goobaha magacaabida ah ee ka bilaaba dhiisi saldhig taliya ka bilaabma ilaa wasiir dee madaxweynahan ka sugaynaa inuu na siiyo doorashada haddaan weyn magacaabida miyaan weyn habluhu xaq bay u leeyihiin in la doorto in la siiyo xaqooda laakiin dee hablaha inay tartamaan wey annaga in lagu dhex daro xaqayaga weliba 8 hablood mid la qaata yeeli mayno magdiina cadka midaanu qaadanaynana maaha waxaan leenahay waanu tartamaynaa saa bini aadmigan soo baxaynaa oo haddaanu helan dhacaynaa iid waxa uu ka mid yahay dadka dhibaatada kala kulmay goobaha shaqo wuxuuna inooga sheekaynayaa wixii uu la kulmay magacayga waa iid eeg waxaan ku dhashay magaalada hargeysa kuna barbaaray magaalada hargeysa kadib hargeysa anagoo ku dhashnay ayaa qaxiyey burburkii soomaaliyeed ayaanu ka qaxnay halka hargeysa waxaanu u qaxnay tuulada abakor markaan 4 sano aan galaaska afraad marayo ayay qaxoontigii dib loo soo celiyo waddanka dib loogu soo noqday qaxoontigii markii dib loogu soo noqday ayaan halkan nimid halkan markaa waxaanu ka galnay iskuulkan waraaba saraan halkaa ku yaala ayaan 4 la geeyey waxbarashada markaa lacag baa halkan kadib 4 dib baa Itoobiya loogu celiyay markii waxbarashadii xaafadii ay naga bixin kari weeyeen ayaa dib loo celiyay dib markii loo celiyay deeto waxa Itoobiya waxbarashadii ku sii wadanay secretary-ga markaa waxaan kaga baxay Kama Bakor markaan kaga baxay dugsiga Cabdi Xaashi ayaa diyaarin jaamacadeed baan tagay oo 2 sano labadii sano markii aan soo dhamaystayna haddana diploma baan bilaabay leadership diplomkii anigoo wada ayaa waxaa dhacday in shaqo laygu qoro shaqadii laygu qoray ayaa waxaa dhacday in aan shaqadii galo shaqadii anoo ku jira ayaan tuulo tagnay tuulan iskuul ka dhisan yahay tuuladii markii aan tagnayna waxaa dhacday in aan macallinkii u yeernay macallinkii maamulihii meesha ka ahaa wax weydiinay su'aalo fara badan kolkaa macallinkii wuxuu ka xanaaqay in midgaani sidoo koo wax ku weydiiya ama meeshaadii uu kuugu yar hanjabaa isagu wax fikir nooc kala abu qaatay naga shaqo shaqo xiri baan nabadgelyo wax kale baan awooday in midgaani sidoo koo wax ku weydiiya ama meeshaadii uu kuugu yar hanjabaa isagu fikir nooc kala abu qaatay meeshii baan nimid degmadii waxaan ku dhawaan dacwad markaa wax laga qabto arrinkaasaa dhacay waxa waa laga qaban waayay maxkamadii waxba way caabin cadaadin baa saaray anigana wax leeyahay war lagu qabana waa iska tago tii gobolkan tagay gobolkana waxba laga qaban waayay kadib waxbarashadeedii iyo wixii oo dhanba ayuu 3 bilood iga harsiinayna shahaadad dulanka ku qaato ayaan bartay ku kansalay gabiga waxbarasho oo dhanba waxa sababay waxa la ii geystay ay waxba ii qaban waayeen reernimada midgaannimada aan ahay ayaa sababtay marka haddaan qof kala ahaan lahaa waxaan aamin iska dhaadhiciyay waxba lagu qaban lahaa kacaakuf badan oo soo wajahay iyo quusasho dabadeed iid waxa uu go'aansaday lax walbaaba shalalka isdhigtaa lagu gowracayay in kamara dhalinta hamigiisa iyo hiigsigiisa ay isaga ku xidhan tahay waxaanu dib u yagleelay ganacsi u gaar ah
haddana iid waxa u qorshaysan inuu sii kobciyo ganacsigiisa isla markaana ku tala jiraa in taageero maaliyadeed oo ah nooca loo yaqaano amaah kalkaal inuu ka helo mid ka mid ah bangiyada Somaliland si ganacsigiisu u noqdo mid taabagala. sida aan Somaliland uga qaylino Puntland loogama qayliyo Jigjiga ugama qayliyaan Muqdisho ugama qayliyaan maxaa aamusiyay hada isweydiin doona madaxweynaha Salahan waa madaxweynihii ugu horeeyay ee la taliyo u magacooday raada wad la taliyo waa madaxweynihii ugu horeeyay scholarship wasaaradda maaliyadda ugu dara sanad kasta intaasoo arday jaamiciina in laga bixiyo viga iyadoo qabiil kale ka yeelin waa madaxweynihii ugu horeeyay ee xaafadda daamilka soo dhiga ardayda ku dhex salaamad dan yarta xusuustana markaan idin leeyahay meel bugtaan ku dhayga haygaga masuugin mar waxaad tidaahaa walaal kula mid bana akaademiga nabadda iyo horumarka Somaliland kooxdiisa maqal muuqaalka wareega waxay qabanqaabiyeen kulan isdhexgal oo ay isugu keeneen in ka badan 300 oo carruur ah oo ka kooban dhammaan qabiilooyinka Somaliland dega taas oo ay ujeedadeedu ahayd in la xoojiyo isdhexgalka maalin jimca oo maalin aad iyo aad jawiga iyo farxadba ay maalmihii kale iga duwan tahay laana waxaan arkayaa ciyaalkii bulshada ka soo jeeday oo ciyaalkii kale bulshada kale isdhexgalkii maanta halka uu ka bilaabmayo keliya tana waa wadiiqada maanta midab kala sooc haybsooc iyo magacyada lafalka ah oo maanta waxa lagu suulin karayo oo kaliya waxa weeyaan ciyaalkana bulshada kale sidaas oo kale u dhaxbooda wana alla mahadi waxaan mahadnaq gaar ah aan soo jeedinaya akademiga nabadda iyo horumarka oo baxsi fara badan ka sameeyay barnaamijkan isaga sidii bulshadan iyo ummadan ay uga bixi lahayd takoorka iyo barnaamijka labadana waa talaabadii ugu horeysay waana talaabo biginina haddii barnaamijkan uu saa ku qabsoomana waxaan aaminsanahay in wixii dambana sidaa iyo si lamid ah oo kasii qurux badan ay bulshadan isku dhex geli doonaan waana gobolka Maroodijeex awoodda waxa la saaraya marka dambana 6 gobol ee Somaliland kale ayaa rajaynaynaa inuu u gudubno haddii Allah awood u ogolaado maantana farxadda wada arkaysaa inta ciyaal halka boqolaalka wada jooga ee wada faraxsan marka kulay maanta waa maalin iga duwan maalmihii kale alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ay tahay maalin jimco ah oo arkaysaan farxadda iyo isdhexgalka meesha ka muuqda kullay wixii caqabadii hore oo dhan already maanta waa laga soo gudbiyay waad aragtaa waana dariiqa kaliya ee lagaga gudbi karo isdhexgalkii laguna la isku dhexgeli karo waxaan u mahadnaqayaa hay'adda akademiyadda iyo horumarinta oo fulisay iskuna hawshay in ay dadku isdhexgalaan anigana arrinka ballanqaadkii waa la ii ballanqaaday wuu ii soo baxay insha Allah khayr baan rajaynaynaa hawshuna si fiican buu dhacday kullay farxadana wada aragtaan meesha ka muuqatay ciyaalkiisa ay isu dhexgaleen dadkii waana dariiqa kaliya ee lagaga gudbi karo la iskula dhexgeli karo laguna sinmi karo waa tan in maanta hayno ma hadda koobaadna waxa iskale ilaahay talabaadna waxa iskale hay'adda horumarinta nabadda iyo akademiyadda Yeah.
waan xusuusinayaa dad isku midaynu walaalaynu isku midabaynu isku diin baynu isku af baynu kala hari mayno midna reebi karaana ma jiro aqal xumada ha laysta daayo iyo beridaa bakti la cunay yaa cunay beri intii cunay hadday jirtaba yuu ahaa maanta ka jooga sabiyaa lagu xukumi karaa qof waliba dembigiisa isagaa leh waxaadse wax jirana ma ahayn wax maanta jiri karana maaha diinta islaamkuna ma ogola dadnimaduna ma sheegayso oo ma ogolaanayso marka kunaad idinka doonaynaa waa taa maalinba dhegaysataan cumar uu laydiin oo heestiisa ku jirtay ahayd haygaga masuugine meel bugtaan ku dhayayaa marun walaal waxaad tidhahaa walaal kula mid baan albaabka naga fura aan soo galle heesta kale waa tidhahaa bashar kula midaanahay bini aadmi baanahay bashar kula midaanahay naf kuu baahan baan ahayn barbarkaaga ila qabo waxaynu nahay dad siman hor ilaahay ku siman qaynuunka ku siman sharciga ku siman filimkani wuxuu hordhac u yahay filimaan wacyigelineed oo akaademiga nabadda iyo horumarku ugu tala galay inuu ku soo gudbiyo xaaladaha nololeed ee ku gadaaman qabiilooyinka filimkani ka hadlayo daawade farriintani qofkay ku socotaa waa adiga isbeddelkana adiga keeni kara ballanteennuna waxay tahay waynu simannahay